السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانت السلام والعليال meel kasta dunida ka joogtaan kulay ciidii fidrigi waxa ka dhiman waqti yar oo kooban ama saacado yar oo kooban marka waxaan kulay ciid mubarak soo dhawaada waa channelkayga live maanta waxaan rabaa insha Allah taala qodob muhiim ah ka hadlo kaasoo ah maxkamad ku taala magaalada Mainz kulay Mainz gobolka wada garanaysaan waxay ka tirsan tahay Mainz gobolka Rhine-Pfalz ayaa waxay ruuxantii gaar samaysay ama ay qaadatay go'aan aad muhiim noogu ah anaga ahaan markaan joogno Soomaali ahaan markaan joogno gobolka yani ama inta gobolka joogtay iyo inta joogta wadankaba sidee muhiim noogu tahay maxkamaddu waxa ay go'aamisay in laga yareeyo cadaadiska badan ee Soomaalida ka haysta xagga dokumentiyada wixii ka dambeeyay 1991kii Soomaalida Jarmalka dokumentiyadii ay wateen inta ka dambeeyay la sameeyo dhan waa la diiday passport Soomaali warqada safaaradda laga keeno warqada dhalasho intaba abgaleynta lagu sameeyo ama waa yani reject waa laga dhigay sababtu waxay tahay dawladda wixii ka dambeeyay Jarmalku ma aqoonsana laakiin qofka haysta passport dawladda wixii ka horeeyay 90kii 89kii 88kii 60kii qof kasta passport-kaas waa la aqoonsan yahay sharcigiisana afkora la geliyay maxkamaddu waxay go'aansatay qof kasta oo Soomaaliya oo marka hore ayniga aan gaaba iyo barnaamijkaas iyo dhibkaasi haystay in laga qafifin doono oo uu qaadan doono sharciga weyn xaqna u leeyahay haddaba hal shardi baa jira ka shardi oo ah qofkaasi in uu keeno qof damiinka ah ama qof mas'uuliyadiisa qaadi kara qofkaasoo haysta u fiirsadalkay qofkaasoo haysta inuu haysto qofkaas sharci wadan kale oo weyn laba qofkaas inuu Jarmalka joogo waalidkii yahay uu haysto passport ka horeeya 1991kii ka hor salaan 80kii 70kii 60kii isgeed aad u fudud haddii aad qofka taqaano aad gobolka Mainz ku nooshahay qofkaas aad u yeeraysaa passport-kaaga weyn ama passport-kaaga Jarmalka kolba soo taqaano ama dhalashada Jarmalka waad u leedahay xaq baad u leedahay maxkamadana ku aamis haddaba dadka Jarmalka kale ku nool sidee ay faa'iido u tahay faa'iido waxay u tahay mar haddii gobol kamida gobolada 16 gobol oo waddanka ka kooban yahay uu talaabo qaaday la soco gobolada kale oo ku dayan doonaan laakiin waxa jirta hal dhibaato taasoo ah cunsuriyiinta xisbiga cunsuriga ee la yiraahdo AfD iyo warbaahinta afka cunsuriga ku hadasha ayaa ruuxantii gebi ahaanba ku dhuftay arrinka isaga yani ishana hoos u geliyay kana soo jeestay mucaaraday يعني sababtoo mucaarada waxa qof Afrika ka yimi in wixiisa la aqoonsado runtii waa adigu suulinta waska wada magaca waa arkaysaa laakiin aysan ogolaan yani qof wadanka ka yimi Soomaaliya de 30 sano adu 90kii wixii ka dambeeyay dawladda ka jirin inuu intuu halkan yimaado aan salahan wixii dokumenti uu istinta la aqoonsado deetana sharciga weyn la wasiyo runtii wadankan ku noolahay Germany dadka dhibaatada ugu weyn boqolkiiba boqol waxay tahay qaadashada sharciga weyn taas oo ay markaste yani dadka ay ku dhibaateeyaan aqoonsiga marka walaalayaal hambaliyadaas runtii waa hambaliyo aad iyo aad Soomaalidu dhan muhiim u ah igaal inaad joogto Jarmalka oo dhan goboladiisa iyo inaad joogto gobolkaas oo qura laakiin mar hadii gobolkaasi aqoonsaday Soomaalidu kulli wadada iska reer guuraaya markasta meesha bahal ku yaalo ay u dhawaadaan ama way kulaalaan waxaan leeyahay qishkaygeerana de halkaan la soo eega si aynu bahalka u soo qaadno aad buu muhiim yahay Soomaaliya degan gobolkaas hambaliyaad leeyahay waa cusub baa idin dilaacay runtii aad iyo aad baa ugu dhibaateysnaydeen helitaanka sharciga weyn ama dhalashada Jarmalka siyaabaha jiro ay kamid tahay dhalashada yani Soomaalida soo cadee markaas raacadeen warqadii geysan warqadii la diidi jiray aad iyo aad ayuu warkani farxad weyn noogu yahay qalbigu noo qaboojiyay runtii waxa rajeenaya gobolada kale Jarmalka inay talaabada ku dayan doonaan waana filayaa maxaa yeelay Jarmalku sidiisuba uu is eegaa gobolka ka dhaqdhaqaaq badan yahay waa lagu daydaa hadduu gobolkaasi dhaqaaqay kulay Mainz Soomaali aad iyo aad badan baa degan magaalada maasha Allah gobolka Soomaali aad iyo aad badan baa degan runtii kastuu gobol yahay dhaqaalihiisu aanu saa u sii weyneyn laakiin Soomaalidu waa dad yani family u badan yihiin wuxuu badan hooyooyin single mother hooyooyin u bad haysta oo de keligooda single mother marka leeyahay iyo de dhalinyaro shaqaysaana runtii de way joogaan laakiin badan family-ga ayaa ku badan
saan anigu information ka hayo maasha Allah hooyooyinku waxaan ugu bushaareynaya haddii ay taasi run noqoto waxaad sameynaysaa un haddii aad haysato baasaboorka 3 sano haddii uu 2 jeer kaa dhacay oo aad samaysay integration aad samaysay shahaadada luqadda B1 aad qaadatay shahaadan kale leeyahay Deutschland la yiraahdo aad qaadatay waxaad u baahan tahay qura hooyana aad tahay wad yar haysato raanti kiiska oo kiisas kale xataa ka fudud waxaad sameynaysaa qura shaqo yar ayaad ku tuurnaysaa tire side ama wuxun baad gelaysaa si aad noloshaada u dabirto ciyaalkaagu haddii yar yihiin xataa shuruudaha in laga qafiyo laga yaabo marka dad hablaha kale laakiin sharciga halka sana haysto ayaa xogaha ay waxa laga yaabaa in yara adkeeyaan maxaa sida caadiga sharciga halka sano qofku markuu intaanu sharciga weyn qaado waa inuu deganaanshaha qaataa deganaanshaha wuxuu ku xujeynayaan 5 sano shaqo luqadii shahaadooyinka luqadda adigu waxyaalahaas xujeen laakiin qofku haddii hooyo tahay 5 sano waa laga qafay 3 sano laga dhigaa marka hooyooyinka laftirkooda chance aad iyo aad muhiim ah ayaa ka soo baxay marka hadii aad hooyo tahay aad gobolka ku nooshahay ilmaha 3 sano ka ugu yar jiro chance baa iska faa'iideyso waxba fadhiin 3 sano oo kitaa iska geey kindergartenka dabeetana adiguna shaqo tag si aad hadafka halka u timaad gaadhay laakiin ma aha sharciga 3 sano inuu 10 jeer kugu dhaco kii halka sano inuu 100 jeer kugu dul dhaco oo kii lagu soo celiyo laftirkaaga taas dib ku keenaysaa maxaa yeelay sababta halkan u timaad inaad ogaataa walaal nimada Soomaaliyeed sidoo kale ma aha dumarka qura laakiin dumarku waxay ku dhibaataysan waxay ubadkii hayaan chance badan ma hayaan chance 100% ma hayaan ilmi yaraaba de xaaladda ilmaha yaraan Jarmalka lagu hayana daara marxaadka guuleeda oo Soomaaliya raanti buu aad iyo aad buu dhib badan tahay hooyo kaligeed ilmo yar haysta aad iyo aad buu dhib badan tahay subaxii bay soo kacaysaa way hagaajinaysaa kitay geenaysaa way ka soo celinaysaa way geenaysaa meesha lagu ciyaarsiin geenaysaa cuntadiisa noloshiisa waa ku dareensanay walaal laakiin la soco hadafkaaga iyo ujeedka aad ka leedahay wadanka alxamdulillah haddii isha soo baxday chart meesana kulli qof Soomaali waaymayno oo familkeena oo dibadda ku maqan oo ku dameenta haddaysan ahayn waaymaysid qof qabiilkaaga ama xudan ha noqdo ama Soomaali oo baasaboorka haysta adigu marmar ku dhicmaysa raanti aad buu fiidiyogan muhiim ku yahay walaalayaal hambaliyada waxaan leeyahay labada golaalka haddii aad markii ugu horeysa channel ka soo booqato fala subscribe kayga saacid fiidiyoogana dhameyso si aad warbixintood buuxda hesho aad bay salaam alaykum warahmatullahi wabarakatuh